xildhibaanada iyo martida sharafta leh halka joogta iyo wafdiga Dowlada iyo Hugh oo ka yimi World Bank saxaafadda iyo dadka Soomaaliyeed halkan naga dhageysanaya Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa runtii sharaf weyn oo maanta inaan qalinka ku duugnay qaybtii hore ee mashruucii World Bank ina siiyay ee ahaa 140 mashruucii 140 ahaa oo aan hore nooga wada hadalay oo ahaa abaalmarin aan odhan karo shaqadii aan soo qabanay ee ahayd geedi socodka deyn cafiska waan muddo dheer ku soo jiray 80kii u horeeyay oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxiixnay waxa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasimo idin ku sharaxay ahayd oo kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta hadii Ilaahay yiraahdo waxa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo healthka soo galaya hadii Ilaahay yiraahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dawladda shaqada wada ayaa ku xiga 140 kaas horta halkaas ay ku dhamaanayaan 140 kaas waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yiri si fiican baad soo qabateen ee geedi socodka ayada cid walba ka qayb gashay ayadoo madax inoogu tahay inoogu yihiin madaxweynaha iyo prime minister waxaan filaynaa waxa weeye maalin dhaweydna waxa saxinoo kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd ee euro 130 meelaha ah waxa soo dhan waxa ka marxaati kacayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay hadaan tahay dadka iyo dalka Soomaaliyeed hadaan nahay dawladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqadan soo qabanay bay ka marxaati kacaysaa xaqiiqadu waxa weeye hadaan sidaa ku sii socono inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan inaga lafteena wax qabsan karo waxa kale oo ku darayaa halkan anoo ka faa'iideystay fursaddan shalayto waxa la approve gareeyay maahan budgetku inuu kacayo waa aragteen waxa soo dhan waxa mahadeed iska leh waa ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee nagala qayb galaya geedi socodka in ama deynta la inaga cafiyo ama dalkeenii dhaqaalihiisa la soo noqon hadii beedma waxa filaynaa sanadka soo socda inay wax ka wanaagsan ima doonaan laakiin anagu sidaan always yiraahdo waxa weeye buur aad u dheer ayaa fuulayna buurtaasina lugaha ku daalaya wada raadaysa dhibaatooyin baa ku qabsanaya laakiin dusheeda buurta ayaa biyo yaalan haraadko dhan ka beenaya taasina waa markaan inagu isku filaana weeyaan dhaqaalaheenu inagu waan soo kicina uma adduunyada kalena wax ku qaban kartaa marka aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan gudageli doonaa markaa hirgelinta mashruucan baan oo cid walba gaarayo dadka Soomaaliyeed la siiyay halkana lama siin meel kale dadka ummadda Soomaaliyeed baa lacagta ayaa la siiyay hirgelinteeda dhaqangelinteeda fulinteeda ayaan ka wada qayb galaynaa waana ka wada sheekaysan doonaa sida loo hirgelinayo cid waliba waa ogaanaysaa shilin waliba iyo dollar waliba halku ugu baxay marka aad baan maanta ugu faraxsanahay waxaan soo dhaweynayaa gabadha ka ah muxuuha regionkan East Africa madaxda ka ah ee Soomaaliya ku jirto Bella Bird baan ku soo dhaweynayaa aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa Assalamu alaikum. So it's wonderful to be here today, and I thank you, Minister Bailey, for your invitation to Mogadishu for the signing of this very important project. In fact, we have two projects today. One that the Minister has explained is focusing on domestic revenue mobilization and public financial management. And on that project, I'm delighted to see that we, as the World Bank, are able to support the government of Somalia to build on the progress that has been made in both raising revenues in an efficient way for the economy and for government, as well as ensuring that the systems are in place to utilize and monitor the expenditures of government. And these are key foundational elements for any government, and it's
It's a core area where the World Bank is involved in many countries across the world. So we're very pleased to be continuing to build on the successes that we've seen so far, Minister, and we thank you for your partnership in that regard. The second project, which is the recurrent cost financing project, is a new phase of this project which has been to date supporting the development of the payrolls in central government and the building of capacities across government. But in this next phase, it's moving in an important new direction of building on the progress made to provide services to citizens through the federal member states. And this is key. And this is what, in fact, the World Bank is all about. It's about working with governments like the Somali government, but governments across the world to support the development of their capacity and their capability to deliver services to citizens. And I think what we see in the RCRF in this new phase is a focus on education and health services in particular, teachers' salaries, the salaries of health workers who are there to provide services for the citizens of Somalia. And I think that is why it's an exciting new phase and why I'm particularly pleased to be here with the Minister today signing that new phase of the RCRF. So let me again thank you, Minister, for your partnership, and my thanks go to all of the government of Somalia, but also just the Somali people who I meet whenever I come to Somalia, and also when in many places around the world. I want to thank you for your friendship and your collegiality and the partnership that we have together to rebuild your country. Thank you very much.